laakiin hal waxa inii sheega xaqa ma aragti sidiisaba wax kasta asaa ka awood badan hadiisa jira ku gabagabeynaa nabiga kaleey salaatu salaam markuu Makka ku cadibnaa oo dadkiisana ay tabarta yaraayeen yaa nin qabiiladan Quraysh aan ahayn xoolo soo safarsaday Makka u keensaday Abi Jahl oo ninkii Quraysh u weynaaya xoolo inta ka qaatay oo lacagta u diiday nimankii madaxda Quraysh u tagay wuxuu yiri warnimayo ninkiini odayga ahaa oo reer Quraysh ugu weynaa asaas yeelay iga furdaamiya markaas ku qosleen markaas waxay ku yiraahdeen nin Maxamed yiraahdo oo xaq difaaca la sheegay si jaas waliba ninkaas u tagay dhahan asaga wax ka qaba kare ninkii runa u qaatay dabcan waa rumaystay waana run badiyay waa baxayay nabiga meel ku jiro u tagay kaasoo ku yiri Maxamed waa leeka soo tilmaamay nimankaas ay ka soo diray ninkaas Abi Jahl xoolay iga dhacay kale iga soo dhici وصار راعي النبي عليه الصلاة والسلام مركي وحيسي مرين قلدي حرم كفديسي شهادات قريش يسي مرين كوي كسو جاسنك ويلي كو درسده مركي waxay dhaheen bal soo fiiri wuxuu Maxamed sameeyay wiilkii waa raacay nabiga sallallahu alayhi wasallam dalqa Abu Jahl yir indho faraaka gali wariyaa waxa uu dhaado nin weyn ah oo Quraysh saadadeedii ku jira oo madaxdeedii ah nin miskiin oo geel soo safarsaday ina dhacdo war moada wax isku falaynin Abi Jahl waa qalqalay marka taqalqalay oo gadaal guriga uu noqdo ninkii lacagtiisi iska sii ninkiina waa bax yarkii waa soo orday qoladii u yimid riboodkii uu sii ninkii Abi Jahl Maxamed markuu saas u fiiriyay waa isku dhaxyaaco yiri ma isru maysanin inuu wiilka xogaa qalqalsay oo qaateen Abi Jahlkii socdaa yimid nimankii u yimid ورسيه هو دعنا ورت بيسي ودهاي والنف ما حيسي بيا لسي ولا فديسي ورسيه هو دعنا وروح دعي ما أخاني ريكي محمد هاي ساكن مركا أركي صلى الله عليه وسلم وحوي رتقوا قن أو أنا جيل هذا ما قوالك بدياه أو أفقك أبرنايا أو إعوني ربع رتقوا عليه مركو أو قوقية أو أبرنايو ضدك واعنا عليه يا أنا عيال وبيا سكير رتقوا ما قاني وابيعون ربو داينكي نفتي على بقوير وحاس مركه wax kala ma nabiga awood kale iyo ciidan kale ma haysan maxuu haystay xaq idinka ka awood badan sheekh bigaas xaq ku taagantiin sida gabdhaas ay sheegeen xaqiina difaacda hatta ku dhimataan sharaf iyo karaamo aa ku dhimanaysa annagana intii tabarteena in kama gaabineen waa in garab taagana kuwa badana meesha ku qaabilnay oo in ka horeeyay maalin kasta xaafadaha noogu imaadaan hadda aniga kaysaska ugu badan marka madasha lama rabo xaafadayda marka xarunteeda marka joogo kaysaska ugu badan loogu yimaado waa dhul nin qof la barakiciyay mid guri laga dumiyay mid booskiisa lagu fidsaday waxaas leh hadda anaga dhamaay aan ka shaqeynaa war marka waa ku celinaa ninkaas odaga ah war ganacsatada dadka sheeganayo kuleeta ganacsatada ma tiidiin war ilaahay ka cabsada oo dadka masaakiinta ah يا dhulkooda u nabadgeliya war dadka hoosaasinayo ama nabadoon koofi lahaw ama xildhibaan ahaw ama siyaasi ahaw ama dalaal ahaw war dadka masaakiinta hoosaasinta ka dhaaf xaq waa in ka soo bixi doona annaga waxaan aaminsanahay xaqa awood badan xaqaasan in kula jirnaa waa in garab taaganahay waa in taageersanahay hantidiina difaactiin ku taageersanahay waad garnaqsateen si cadaalada u garnaqsateen war waxa dhaadeen xataa hadii lees dhaca xataa oo dhulkiiba dawladii qaadanay waxa anaga 8 kun loo kor saaray wax la garan kara ma marka waa in la jirnaa waa maasantiin ha ka qowsanina wixiina maanta ama beri dambe waa heli doontaa dawladda